iyadoo guud ahaanba dunida islaamka looga dareeray tukashada salaada ciidul udxa magaalada Burcaan ay kamid ahayd meelaha sida weyn looga tukaday salaada ciida ayaa waxay bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaaladani ay salaada ciida ku oogeen meelo kala duwan iyaduna ay ugu weyneed garoonka weyn ee Alamsey Stadium ee magaalada Burco culimada kala duwan ee ku dhaqan gobolka Togdheer ayaa goobahaasi ka soo jeedinayay ducooyin dardaaran iyo baaqiyo kala duwan ay u direen bulshada qaybaheeda kala duwan barakallahu fiikum ilaahay dambigeena ha dhaafo inta xanuunsanaysa ilaahay subhanahu wa ta'ala xanuunka ka qaado inta caafimaadka qabtan ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaadka u sii siyaadiyo karaysa ee culimadu ugu horeyso cidii iskaga guuraysa iska nacaysa iskaga tagaysa waxa loo baahan yahay in munkarka la suuliyo xilba inaga wada saaran nabiguna amar buu ku bixiyay sallallahu alayhi wasallam amarka nabigana in la qaataa shay daruuri weeye arinta aad baan idinku adkeenayaa ciid waa ogtihiin maanta macaasi oo dhan baa laga yaabaa inay dhalinyarada la soo banbaxdo inay meelaha yiraahdaan waa u baxaynaa xumaan badan baa laga yaabaa inay dhacdo qof waliba cid uu mas'uulka ka yahay waa la weydiin doonaaye haka warhayo barakallahu fiikum mas'uuliyiinta gobolka Togdheer iyo kuwa degmada Burco oo iyaguna bulshada la hadlay ayaa ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadgelyada iyo xasiloonida arrimo badan baanu qaadaynaa nimcaynu ku jirnaa nimcadaasi aan ilaahay inoogu qabsanin inaan nagula shaqaysaan oo waalidka waa u dan ilmaha in lala rabeeyo oo dawladdu la rabayso oo iskuulladu la rabeeyaan waajib bay inagu tahay waxaanu soo saarnay ninkii ku marmarsoon doono baaday ku taalaa inaan jaamacadda la dhigan karin 7:00 fiidnimo wixii ka dambeeya waayo waxaan ogaanay jaamacadaha lagu marmarsoonaya inay ka mid yihiin waxyaabaha fusuqa ugu horeeya ee inanta gurigooda kaga dhaxayso inankina uu in lama iyo 12 sheeganayo inuu jaamacad ku maqan yahay ummadda marka khayr la maagan yahay waxa hagaaga generationka soo kacaya iyo ummadda madaxdeeda ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala iswaafajiyay Ilaahay labadaba hayno hagaajiyo si hagaajiyo labadaba khamriga way nagu soo batay xashiishka way nagu batay labadaba maandooriyayaal aad u xun haddana waa la dagaalamay askartana hadalkeeda badda bileysku oo darbay laakiin labadaba waxay shaqeyn karayaan marka shicibka iyo dadka meel kasta jooga ay la shaqeeyaan ciidamada booliiska oo ilaa halkan waxa yaala laba mashruuc oo maanta halkan inoo yaala mashruuc waa masaajidkan aynu naqaanay masjidul huda waa la duniyay muddo badan buu masaajidkaasi inoo baahnaa maanta baa ilaahay dadka qaar ku ilhaamiyay waxa uu inooga baahan yahay taageero iyo tabarucaad inaynu u fidino nabiguna intaasi kadib telefishinka Somali Cable ayaa dareenkooda ciida la wadaagay bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer waxayna hambalyo kala duwan u direen eheladooda qaraabadooda iyo bulshada islaamka way lagu bariyeen inay ciideeda ku gaadhaan bashbash iyo barwaaqo waxaan halkan ka salaamayaa guud ahaan madaxda iyo maamulka qaranka Somaliland oo ku jiro madaxweyne Axmed Maxamed Siilaayo waxaan kaloo salaamayaa axsaabta mucaaradka gaar ahaan xisbiga wadani iyo musharaxiisa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro iyo gudoomiyihiisa guusha ee xisbiga Xamse Cabdiraxmaan Khayre iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan kaloo salaamayaa kooxda aan oran karo gurmadka fanka ummadan fan lahayn saxdii maaha kooxda xidigaha geeska ciid mubaarak waxaan halkan hambalyo ciida ugu diray hambaliyada ciida waxaan ugu dirayaa ummadda islaamka meel kasta ay ku nool yihiin gaar ahaan ummadda islaamka Soomaalida meel kasta ay joogaan qurba joog iyo walal joogba waxaan kaloo halkan hambaliyada ciida ugu diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Siilaayo iyo marwadiisa Aamina waxaan halkan kaloo hambaliyada ciida ugu dirayaa wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta wasiir Cali Xasan Maxamed Cali Mareexan marwadiisa Samiire Ismaaciil waxaan leeyahay ciideeda bashbash iyo barwaaqo gaara waxaan furayaa aan Ilaahay ka baryayaa in ciidan dambigeena ku dhaafo ciid mubaarak kula caam wanta bixir munaasabada ciida awgeed waxaan aad u salaamayaa dhammaan familygayga meel kasta ay joogaan saaxiibadayda adduunka meel kasta ay ka joogaan waxaan leeyahay dhammaanteen ciid mubaarak ciidan ciidada Ilaahay bashbash iyo barwaaqo inagu gaarsiiyo maanta ay tahay maalin ciidul adha waxaan ciid mubaarak leeyahay ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciideeda ku ciida
barbashbash barwaaqo iyo badhaadhe si gaara waxaan hambalyada ciidda la wadaagayaa ummadda reer somalilan guud ahaan anoo ka bilaabaya madaxweynaha qaranka golaha wasiirada iyo guud ahaan ummadda reer somalilan oo dhan waxaan ciid gaara halkan uga dirayaa faamiligayga asxaabtayda qaraabadayda iyo guud ahaan cid kastoo muuqayga iyo magacaygaba taqaana raxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dhammaan ummadda islaamka meel kasta joogaan waxaan kaloo salaamayaa ummadda reer somalilan meel kasta ay joogaan dunida gaar ahaan dadka ciiday ee ku ciiday dalka somalilan waxaan kaloo salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siiraayo marwada qaranka dhammaanba howlwadeennada dowladda ayaan aad u salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa waalidiintay hooyaday aabbahay adeerkay oo aan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr telefishinkan caalamiga ee Somali Cable iyo dhammaan guud ahaanba bahda kala duwan ee ka shaqeysa salaan kadib waxaan si gaar halkan uga salaamayaa dhammaanba familigayga ay ugu horeeyaan waalidiintay inta aanu asxaabta nahay oo runtii halkan aan ka soo koobi karin magacyadooda oo lista si guud baan u salaamayaa mar labaadka halkan waxaan salaan uga gudbinayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo madaxweyne ku-xigeenka golayaasha qaranka ciidamada qalabka sida iyo guud ahaanba shacabka reer Somaliland meel walba caalamka ay kaga nool yihiin Shaafici Maxamed Ibraahim telefishinka caalamiga ee Somali Cable magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer